maanta bishii tahay 15 bishii 6 2026 waxaan halkan kala wareegnay hay'adda King Salman oo soo wakiilatay hay'adda diyaargarowga Afrika dabiiciga ee Nerford oo shaqada qoyska loogu talagalay ka tirsan markii koobaad iyo kii labaad saddexaad ma aha hay'adda Nerford ay soo gaarsiisay deeq raashin ah oo loogu talagalay dadka abaaraysan tirsan runtii degmada Gumbura oo degmo ballaaran ah oo jecel lahay in loo soo kordhiyo magto deeqda deegaanka la siinayo maadaama ay tahay dad daal badan ay yaalaan aad iyo aad marka mahadnaqaynaa dowladda Sacuudiga King Salman iyo hay'adda diyaargarowga Afrika dabiiciga Nerford ee gudoomiyaha Kiyaad Axmed Xuud aad iyo aad mahadsantiin dhammaantiin Assalaamu Afrika halkan waxaan uga mahad celinaynaa hay'adda Nerford oo soo gaarsiisay iyadoo ka wakiila boqortooyada Sacuudiga deeqda ay soo bixisay raashinka hay'adda Nerford raashinka ay soo gaarsiisay aad iyo aad baan ugu mahad celinaa boqortooyada lafteedana iyo deeq bixiyaashana aad baan ugu mahad celinaa waxayna soo gaarsiisay maanta deeq dhammaystiran 160 qoys oo aanu ku qaybinay guud ahaan degmada Sayla marka hay'adda Nerford iyo hawlwadeennada sida Suuduwaha iyo qoladan hawlwadeennada iyo dhammaan mas'uuliyiinta aad iyo aad baan ugu mahad celinaa waxaan idin leenahay miisaanka xasanaadka Ilaahay idin saaro waxaanu idinka haynaa 160 qoys raashinkoodan idinka haynaa marka wada waanaanu aad iyo aad waan ugu faraxsanahay annaguna waan geynay halkeeda waxaanu siinay dadkii u baahnaa waayo maadaama meesha wadanka ay abaar ka jiraan dadkii u baahnaa suutul bilku ah annaguna waa idinka gaarsiin haddaan nahay maamulka degmada Sayla haddaan nahay degmada Sayla raashinka waxaanu gaarsiinay dadkii loogu talagalay waxaanu qaybinay tuulooyinka degmada Sayla sida Baargo masaajidka iyo Baryacune magaalo Furre Laflimoodaha dhammaantood sidii loogu talagalay baanu gaarsiinay aad iyo aad baan ugu gudoonay waana u mahadnaqnaa cid kasta oo arinta ka soo shaqeysay waxaan halkan baan uga dirayaa cid kasta oo hay'adaha wax bixiya dhammaantood ilaahay baad wax bixiye inay la soo gaaraan ummadan abaaraysan baadiye biyo waxay helaan subxaanahu wa ta'aala marlabaadka waxaan u mahadnaqayaa maamulada iyo maamulada degmooyinka degmada Balcabane degmada Gumburaha iyo degmada Sayla oo runtii si fiican noola fududeeyay qaybintii raashinka maanta oo bishu tahay 15 bishii 6 2026 waxaanu degmooyinka hoos yimaada gobolka Hawd aanu ka qaybinay 400 oo qoys oo loogu talagalay dadka danyarta ah xooluhu ka jilceen 400 oo qoys ayaanu maanta gaarsiinay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa weeyaan deeqdaasi ma aha deeq ku filan laakiin tugba taagtiib rugmada waxa weeyaan kolba sidii loo kala danyaraa ayaanu niri dad bulshada loo gaarsiiyo hawshaasina si fiican baynu fushay waxaanu degmada Balcabane ku qaybinay 115 qoys waxa kale oo degmada Sayla ku qaybinay 160 qoys waxaanu degmada Gumburaha ku qaybinay 125 qoys 400 qoys sidaasaanu degmooyinka ugu kala qaybinay degmada Sayla waxaanu kala jabinay laba goobood Sayla oo ah 85 iyo Baargo oo ah 70 qoys marka alxamdulillaah rabbil caalamiin deeqdana waxay ka timid boqortooyada Sacuudiga Carabiga waxaana fulinaysay hay'adda Nerford hay'adda koortaga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka oo uu hogaaminayo mudane Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil Dixood maanta halkan waa degmadii Balcabane raashinka soo gaaray taakulaynta tiradiisu ahayd 115 si fiican uu soo gaaray waana si wanaagsan u qaadanay intii soo bixisay intii hawlwadeenka aba wal mahadnaqaynaa kuma fila laakiin wax weyn buu tiraysan waxaanu joognaa goobtii lagu qaybinayay raashinka ayna soo gaarsiisay hay'adda ka hortagga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka runtii anagu uga mahad celinayna hay'adda waqtiga adag duruufta jirta iyo xaaladda abaareed ee deegaanku ku jiro kulli deeqda ilaahayba dadka ma wada gaadho oo waan arkaynaa waxa weeyaan dadkii ugu jilicsanaa ugu danyarsanaa ayaa halka ku qaadanaya runtii wax weyn ka tari doonta xaaladda ay maanta dadku ku jiraan waayo dadkan waa xoolo dhaqato waa dadka ku nool neefka xoolaha neefkii xoolahana maanta haba yaraatee roobkii gugu kama diin deegaamadan gobolka khaasatan degmada Balcabane
runtii annagu uga mahad celinaynaa hay-adda ka hortagga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka waxaanu leenahay dadkaasi kolley intani kuma filna waxaanu leenahay ha laga warhayo annagoo runtii uga mahad celinaynaa mar kasta oo ay xaalad abaari jirto sida ay qiimaha leh ay xil isaga saaraan deegaamadan gobolka hawd khaasatan degmada Ballacbane maanta way bishu tahay 16 bishii 6aad waxaana soo gaaray 115 qoys oo inoo keentay hay'adda maareynta aafooyinka taas oo ay soo dhiibtay boqortooyada Sacuudiga aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu raashinka u qaybinay dadkii jilcisanaa dadkii xooluhu ka baxeen abaar baa ka jira gobolkan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hadda mar koowaad iyo mar labaadba aad baan ugu mahadnaqaynaa